وبرنامجان ugu talagalnay inaynu ku naaqidno isla markaana hoosta kaga xariiqno faa'iidooyinka uu leeyahay jimku inagoo ku booqon xarunta magac iyo faca weyn ee Lions Gate oo ku taalla magaalada Hargeysa. xaruntan oo muddaaba ka shaqeynaysa horumarinta iyo sidoo kale gobcinta garaadka dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku taalla magaalada Hargeysa ayaa waxa ka faa'iideysta kumanaan kun oo kamid ah dhalinyarada reer Hargeysa iyagoo ugu soo boqola isla markaana uga yimaado goobo fogfog si ay u dhisaan isla markaana uga qayb qaataan hab dhiska jidhka caafimaadka ama maskaxda caafimaadka qabta. xarunta magaca iyo faca weyn ee Lions Gate Center Sports ayaa waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo kamid ah jimicsiga qaybihiisa kala duwan kuwaas oo loo kala qaado ragga iyo dumarkaba. waa kuwan qaar kamid ah dhalinyarada ka faa'iideysta xarunta Lions Gate oo ku ciyaaraya isla markaana sameynaya practice iyagoo qaadaya biraha qaybahooda kala duwan birahaas ambaba jimka amba xaruntan oo haysa qalab kala duwan oo aan oolin geeska Afrika intiisa badan. xarunta Lions Gate kuma ee ka kaliya inay ka faa'iideystaan raggu balse waxa jira qaybo kala duwan iyo waqtiyo kala duwan oo lagu talagalay inay haweenku ka faa'iideystaan iyagoo ciyaara qaybaha kala duwan ee sportiga isla markaana ay bixiyaan casharada qaybihiisa kala duwan macallimiin ajaaniba iyo sidoo kale qaar u dhashay dalka yaqaanana luqadda afka Soomaaliga. daawade ma aha markii ugu horeysay aad aragto bira la qaadayo balse nuxurka iyo sidoo kale faa'iidada ku jirta ayaa ah inaad heli karto iyadoo la og yahay in daraagiska daawooyinka aad isticmaasho ay qayb ka yihiin la dagaalanka jiritaanka noloshaada balse aad u baahan tahay inaad samayso exercise ama tababarka dhanka jimicsiga jirka. xarunta Lions Gate Center Sports oo kuugu taalla magaalada Hargeysa ayaa ka qaybtaraysa isla markaana kuugu diyaara hadaba ha moogaan daawada inaad ka mid noqoto xarunta cusub ee Lions Gate Center Sports ay ku yaalaan qaybihii qalabka kala duwan ee lagu talagalay jimka qaybihiisa kala duwan. xaruntu waxay qaadanaysaa arday cusub iyadoo ay ka qalin jabiyeen isla markaana ay soo mareen in ka badan 100 arday oo kamid ah ardayda ambaba dhalinyarada iyagu aqoon-yahanka u ah bulshada Soomaaliland. waa Hanad Caraale Cayuuni iyo sidoo kale Anas Same Hufnaan magaalada Hargeysa.